salaamu Allaahi calaykum kulanti wanaagsan akhyaarta qiimiga qadarinta inagu mudan idilkiinba meel kastood naga daawanaysaan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka xiisaha badnaa oo aad hadahan oo kale inooga barateen inaan hawada idiin soo marino barnaamijkii ku naso kalsan oo caawa halkaan ay si wada jira idinkugu soo jeedi doonaan kaltuun muuse iyo maxamed cabdiqaadir cilmi oo ila wadi doona barnaamijka mar kale akhyaarey waxaan idin leenahay habeen wanaagsan alaaba barnaamijku waa barnaamij inta badan ay ku nastaan kuna falaqeeyaan waxyaabaha xilligaasi ay doonayaan asxaabta wararka iyo barnaamijyada toddobaadkaasi ka daawanayay TV-ga caalamiga ee Kalsan barnaamijkan wuxuu gundhigu yahay in ay saaxiibada ku tixan TV-ga caalamiga ee Kalsan ay hawada inoo soo mariyaan taaniyadaha arooska farxadda dhalashada iyo waliba meherka iyo nigaaxda waxaa meesha ka marnayn in saaxiibada waraaqahooda ay inoogu soo diraan emailada TV-ga sida kunasokalsan@gmail.com iyo waliba kalsantv@gmail.com waxaana ka marnayn in saaxiibada barnaamijka ku tixan ay ka soo qayb qaataan qadadka telefoonada iyagoona salaan hawadii bogaadin u marinaya balse ka hor intaan guda galin barnaamijka kaltuun oo dhinacayga taagan caawana barnaamijka igula lamaansan oo aan si wada jir halkaan idinkaga soo daadii doono bal aan weydiiyo waxa ay caawa inoogu tala gashay hal iyo labo كلي محمد عبد القادر هرت آدي آد أيان كوم هاد علنيا سيد قروح بدن لآد برنامج إلى داديني سيد بشهادة دافها دنيا إما دنيا دعالة ده سيد يتعبه إنا قد عونا ينا أو كلي بواحد وهي سيدي وحنو هيبه هل كان أيان صابر نجدنا كلي أنا حقي حتى نكون صابر نجوا وحنو هيا قبل آدي آد وحي صبدن waxaan hayad taaniyado aroos oo aan halkan doonayo inaan uga soo gudbiyo sheekooyinka kale ee mataqaanaa marka aynu soo gudbinaynana mala xagga ay ku tahay xagga salaamahana dib aynu dhigan doonaa aad weyn kaltuun waxaa jira sidoo kale waxyaabo xiiso badan oo barnaamijka inta badan aan ku soo gudbino waxaan filayaa daqiiqado ka hor barnaamijka intaan u diyaar garoobaynay waxaa jira kilib aad u qurux badnaa oo aan daawanayo oo aad adigaba aad u qashasho markii aad daawatay walow aan rajeynayo in daawadayaasha barnaamijka ku xiran ay si fiican loo qosli doonaan barnaamijku waa ku naso kalsan biyana ma ag yaalaan waqti dheer baan sugaya iyo war badan iyo waraaqo tiro badan baan u jeedaa halkaani oo qaarkood ay yihiin aroos iyo farxado la isugu soo diraya salaamo badan baa jiri doona balse intaanan barnaamijka guda gelin anakoo saaxiibada barnaamijka ku xiran aan u sheegayno inaan toddobaadkan waxyaabaha usoo diyaarinay ka mid yihiin isticmaalka aaladaha social media ama Facebook Twitter-ka iyo Instagram-ka waxyaabaha la midka ah oo bulshada waxyaabo badan ku soo kordhinaya waxa jira kaltuunay muuqaal toddobaadkani aan soo helnay kaasi oo ah gabar iska qaadaysa sawir iyadoo ka soo baxaysa gurigeeda danna way soo saaraysaa Instagram-ka ama Facebook Twitter-ka something like that waxa dhacaysa kaltuunay inay nin dawirsanay ama togsanay inta u tagto ay sawir iska qaato way sii soconaysaa guri gubanaya arkaysaa sawir baa iska qaadaysaa marka isbedel bay bulshadii ku keentay aaladahani social media-ga muuqaalkaasi waan haynaa oo dhacdooyinka ugu xiisaha badan toddobaadkan kusoo talagalnay ka mid ah taa waxaa kaaga sii daran anigu waxyaabaha iga yaabiyey mataqaanaa aaladda aan ku arkay even Facebook aan ku arkay haba ahaatee Facebook basically aan ku arkay waxa weeyaan gabadh iyadoo foolanayso dhakhtarkii la geeyo xanuunka ugu faraha badnaa ku jirta tiri inta iga qaadan ii soo dhigay isla markiiba Facebook yacni ilaa intaan umulan ba iga soo horeysiiya kaltuun waxyaabaha ugu yaabka badan oo miidiyaha lagala kulmay toddobaadkani hadalhaynta ugu badneed aad bay u tiro badneed waxyaabaha xiisaha badan ay idin waxay tahay faanka rag iyo dumarka yaa la dhihi karaa aad buu u faan badan yahay kolley baan waxaan oran karaa ragga baradheere waxaa la yidhi barbarkay ka baxdaa waa bakeela waan arki doonaa ragga iyo dumarka kan aad ku faanka badan muuqaal ayaan haynaa toddobaadkan oo aan jecelnahay saaxiibada barnaamijka inay nala wadaagaan balse intaanu guda galin kaltuun maxaan daafurka ka dhiganaa barnaamijka kaalinta suugaaneed maxaad inoo haysaa kaalinta suugaaneed waxaan inoo haya gabay aad iyo aad u cajiiba gabaygan oo ka hadlaya dhaqanka dhalinyarada ka hadlaya gabayga ayaan doonaya inaan inugu furo adinkuna aan nala daawataan bal adiguna hadhow tole faalaynta aad ka bixisid waaye haddaba nagula nasta gabaygan waa tahay daawadayaal waxay ila tahay in gabayga aad iyo aad uga hesheen gabaygaas oo ka hadlayay dhaqanka dhalinyarada iyo dhalinyaradu sida ay socodkooda u bedesho iyo dhalinyaradu yacni siyaabaha ay u socoto maxamed waxay ila tahay adiga laftigaagu in aad aragtay dhalinyarada qaar baa socodkooda bedela qaar baa mataqaanaa basically sraawishaba dee intay hoos u dhigtaan iyagoo basically iska qabanba suqa iska maraa marka waxay ila tahay in aad iyo aad uga hesheen waxaan doonayaa inaan halkan handana hambalyo guur aan u raaciyo
markaana dee adiga kuga soo wareejiyo Haye. waxaan doonayaa halkan inaan hambalyo guur uga diro cabdi xasan iyo shukri axmed oo ku aqal galay magaalada burco waqtigu markuu ahaa shalay toole ayay ahayd bay ila tahay taariikhda ku sugan tahay cabdi iyo shukri waxaan leenahay noqda kuwa isku waara ubad khayr qaba ilaahay kala siiyo diintooda iyo dalkoodaba anfaca dee adiguna waxaad soo raacinaysaa waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamin 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 baan ugu dareynaa waxaan filayaa aroos mar hadduu dhaco kaltuun waxaad ogsoonaataa in inta badan qofka marxaladii ugu jira uu ka baxay nabi maxamed sal alay slam wuxuu yidhahday dhalinyarada ha ku dadaalaan guurka waxaan rajeynayaa inaad wax badan ku dadaali doontid adiga laftirkaa kalta kole wayna wada haystaa waana wada haysataa kaltuun sheekooyin xiiso badan ayaa jira toddobaadkan waxaa jira mid ka mid ah saaxiibada barnaamijka aadka ugu taxan oo aan aad kaga mahadcelinayo oo sheeko qurux badan inoo soo diyaariyo magacayga wuxuu yidhahday waa abiyow axmed aadan waxaan ku magac dheerahay abiyow stalwer stalwer waxaan malaynayaa waa gabayga had u dambeeyey ka hadlayo in qofka uu xirto dhar stalwer la yidhaah yani style aad u weyn ayuu yidhi wuxuu dhahay waxaan ku noolahay dalka angola waa qaaradda africa sheeko ayuu inoo soo diray sheekadani waa sheeko aad u xiiso badan kaltuunay intaan ka hor dhicin sheekada wax jeclaan lahaa qoraaga sheekada iyo qofka fariintana soo gaarsiiya inaan mar labaad kaga mahad celiyo marka hore waan ku salaamayaa adiga ah daadiyaha barnaamijka maxamed cabdiqaadir cilmi iyo weliba lamaantaada ayuu kusoo qoray meeshaani kaltuun muuse saaxiib middaa mid lamida ayaan hawada kuusoo marinaynaa waxaana ku leenahay waana ku mahadsan tahay salaantaada qaaliga aad noo soo gudbisay sheekadan waxay dhex marta ayuu yidhi wiil iyo weliba oday oo wiilku gabar u soo doontay sheekada haddaan marka guud aan kuu sharaxo kaltuunay haddaad baa dhahda iga sheekay waxaan ku dhaha kaaga sheekay maasay xiisa kugu yeelato aniga qudheeda xiiseynayay adiga laftirkaaga ay dhahay waan xiisanaya ii horumari baa dhahda sheekada aan ku horumariyo sheekadan wuxuu dhahay waa wiil soo doontay gabar iyo gabadha aabaheed uu ka soo doontay gabadha wuxuu yidhaahday waxay dhex martay wiil iyo oday gabar laga soo doontay qof walba qof soo doontay gabar ayuu marka lagu soo qoray sheekada sidaan ayay u dhex martay mid ciyaal xaafadda ka mid ahaa ayaa gabar soo doontay oo wuxuu yimid asagoo xanja cunaya meeshii odayaasha ama ergada gabadha ay fadhiyeen gabadha aabaheed iyo weliba reerkii gabadha iyo asaga reerkiisii ayaa jooga meesha danna meeshaas ayay soo fadhiistay asagoo weliba xanja dhaj ka siinaya xanja cunista marka loo fiiriyo meelaha qaar sida soomaalida dhaqanku ahaan ma waxa uu yaqaanaan dee qofku inuu careless yahay qofkan inuusan mas-uuliyad qaadi karin asagoo xanjadii ruugaya oo cananjinaya ayuu odayaasha soo dhex fadhiistay markaasaa wiilkii gabadhii aabaheed baa wuxuu ku yidhi war wiilkan wasaqa maan gabadheeda siisanayaa asagoo gabadha soo doontay buu xanjo ku dhex cunaya raggii odayaasha wax lamid ah markaas wiilkii hadlo wuxuu yidhi adeer sorry sigaar baa hadda soo caba marka urka sigaarka baan ku baabi'inayaa markaas odayga inta yaabay wuxuu yidhi oo adeer ma sigaar baa cabtaa marmar baan cabaa markaan khamriga soo cabo ayaan sigaarka cabaa oo ma khamri baa cabtaa ayuu yidhi khamriga waan cabaa markii aan qamaarka ciyaaro ayaan cabaa khamriga ayuu yidhaahday odaygii wuu yaab oo ma khamri baa cabtaa odana soo qoray markaas wuxuu ku yidhi khamri ayaan cabaa markaas wuxuu ku yidhi wiilkii oo asagana dhool caddaynaya iyo odaygii oo yaaban oo isku wareersan ayaa waxay dhaheen khamriga waxaan bartay markii aan xabsiga gala ayuu yidhi ma cabi jirin horay odaygii waagiga kusii bariyay midba mid ka dara wayba kasii liidataa markaas buu ku yidhi odaygii haddana ma xabsi baa gashay sababtoo ah xabsiga waxaan u gala ayuu yidhi hadda ka hor baan oday dilay odaygii gurigiisaa looga soo galay hadda ka hor baan oday dilay ayuu yidhi oo maxaa u dishay gabar baa inta kasoo doontay baan odaygii ii diiday markaasaan dilay sidaas baa xabsi lagu gelay odaygii oo yaaban baa wuxuu yidhi maandhow gabadheedi waan ku sii bilaa sharuud la-aan waxaan tiyay waxba lagaama rabo ergadii meesha fadhiisay ayaa sidii ku kala dareertay sidaas baa odaygii gabadhii wiilkii ugu guursaday ugu dambeyntii wiilkii marka ka yara dhex gala odaygu muxuu ka baqay in isaga uu dilo sheekada dhanba waa waxay kusoo aroortayba qisaada ka hor dhacday baa looga sheekayay sidaanu kale gabar diiday gabar oday diiday baa la dilay kaltuun marka waxaan ka baqay odag wuxuu ka baqay in la dilo ka baqso gabadhii buu yiri wiilkii wiilkii sidaas buu wiilkii gabadhii ku helay walaahi ka cudubleysata walaahi ka cudubleysata sidaas buu gabadhii ku guursaday sheekadan waxay noo soo qoray
abiyow axmed aadan saaxiib abiyow waad ku mahadsantahay sida wanaagsan aad barnaamijka nagala soo qayb gashay wuxuuna ku sugan yahay dalka Angola sida ku sii wada ayaan ku leenahay saaxiib waxaana ka sugaynaa toddobaadka dambe sheekooyin kale oo aad u xiiso badan sheekadan maxaa laga dhuuxi karaa kalto sheekadan wallahi waxa laga dhuuxi karaa qofka bini'aadanka ee markuu ku yimaado markuu gooraysa xanjadu la yaabanaaba dabeetana xanjadu waxa uu soo dhashay badda sigaarkii isagoo la yaabo haddana khamrigii yimi khamriga haddana xabsi buu yimid khamaar buu yimid khamaarkii xabsi buu isku bedelay ugu dambeyn xabsigana wuxuu sabab u ahaa dilidaan buu dilitaanka odayga waxbay ka daran yihiin sheekooyin kale oo xiiso badan ayaa jira oo aan filayo in aan saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya qadadka telefoon saac wixii ka dambeeyay kaltuun inoo furan yihiin qadadka telefoonka waan idin furi doonaa oo nagala qayb qaadan doontaan adinkana waxaan idinka rajeynayaa sidaas oo kale in aanu haysaan sheekooyin aad iyo aad u qosol badan oo aanu haysaan gabayo oo aanu haysaan heeso aad iyo aad noo xiise geliya ama aad iyo aad u macaan codkiina qurux badan aad noogu luqaysaan aniga maxamed badiyaar baan idin hayso maha markan waxaa ii soo dhacda gacanteeda warqad aroos ah hambali horta kaltuun siiba dalkan ku noolnahay UK aroosadu xilli bay dhacaan xilli bay u badan yihiin adaa lagaa wareysanaya taa xilliga qabowaha ma soo xilliga kuleelaha kale inagu bas hadaynu Soomaali nahay waxa leeyahay kuleelaha inoo badan aad siiba Soomaalida ku dhaqan dalkan UK magaalada London laakiin wadankeeni iyo Hargeysa Friday wala isku guursan arooska xad ma laha guurkiis ma taago Friday oo socda sanadii dambe aroosku wuu adkaaday oo waxa la sheegay xogaa in xulafeen ay ka jirto dhanka wiilasha iyo gabdhaha mar haddii aan barnaamijka ku soo qaadanayno xubin ah yaa faan badan ragga iyo dumarku yaa faan ku jecel yahay iyo xooluusan lahayn inuu ku faana jecel yahay maadaama ku soo qaadanayno barnaamijku horta maxamed waa doonaysa in xulafaynta laftigeeda ku dhex kala xagga ragga waxa la yiraahdaa mar walba raggu waxay ku soo xirigeliyaan dumarka been waxaan ahayn ay ku soo xirigeliyaan waana mahmaahayba meel ku qorteen waxay yiraahdeen dee beenna ku soo xirigeli runna ku dhaqfay yiraahdeen marka dee halkaas ay ka caddahay soo marka faafayn ma baahna saan baad iga reysay hal iyo baad sidaan baad iga reysay qadadka telefoonada way noo furan yihiin asxaabta barnaamijka doonaysa inay hambaliyo salaan meher farxad iyo waliba haddii muddo qof kugu dambeysay sida waalidka oo kale aad doonaysid inaad salaan qaaliga hawada u maraysid waxaa kuu suuragelinaya oo kuu sahlaya barnaamijka ku nasa kalsan oo aad ka daawanaysid TV-ga caalamiga ee kalsan warqadda markaan gacanteeda kusoo dhacday waxaa la yidhi waxaa diraya xiis dhegay xirsi dhegay iyo waliba daahir dhegay iyo dhammaan reer dhegay iyo waliba waxa la yiri caruurtooda waxa la yiri xiis dhegay iyo xaaskiisa Shamso iyo caruurtooda iyo waliba waxa la yiri Muuse Cabdullaahi Jaamac Maxamed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Ruqiya Cabdullaahi Maxamed Shams Cabdullaahi Maxamed Maxamuud waa yaabo way iska ag dhawaadeen Maxamed iyo Maxamuud qoraalku iskaga ag dhow yihiin kaltunay waxay yiraahdeen dhaqane Cabdullaahi Jaamac muxubbo Cabdullaahi Jaamac Raxma Cabdullaahi Jaamac dadkaani oo dhamaantood ku kala sugan shanta qaaradood adduunka khaasadana dalka UK waxay farxad aroosa u dirayaan Shaafici Maxamed Cabdullaahi iyo waliba aafadiisa ama gacalisadiisa man ira aafo marwadiisa af Soomaaligu waa markii loo jeedo yiri marwadiisa Raxima Maxamed Cabdullaahi oo ku aqal galay caasimada dalka UK London waxaan leenahay isku waara oo wada qeyb kala hela amiin dabcan maxaad ugu dar lahayd ducada kullee waxaan ugu daraynaa noqda ku isku waara oo wada qeyb Ilaahay kala siiya dalkooda iyo diintooda anfaca awlaad qeyb qabtana Ilaahay inuu kala siiyo anaguna aamiinta ayaan idinku soo daraynaa insha Allah wad haysay ma hambaliyo kale hambalooyin kale way jiraan qadka telefoonka ugu horeeyo assalaamu calaykum calaykum assalaam wala saaxiib ku soo dhawaa barnaamijka kuna sakaasan magacaaga halkaad ku sugan tahay walaal magacaygu waa Maxamuud Jaamac oo aan joogaa Germany Maxamuud ku soo dhawaa barnaamijka kuna sakaasan waxaad nasiib u yeelatay qofkii ugu horeeyay barnaamijka nagala qayb galay toddobaadkan waliba Maxamuud waa taaqeeyaan saaxiibada barnaamijka barnaamijka ku xidhnaan jiray kaltuuna waa salaamaya Maxamuud aad baan ku salaamayna aadna waan ku soo dhaweynaynaa aadna waan ugu faraxsanahay caawina nala soo hadashay kaltuuna walaadii ayamaan waa lagu waayay laakiin barnaamijkan laanta ma soconayo meesha ku maqnayd caawa la weydiinaya Maxamuud yaa wala halkay ku maqnayd kaltuun caawa la weydiinaya toddobaadidani marka kaltuuna waxaan jeclaan lahaa inaad maaragtay wiilka dhiga nooga dhigtiyo ama sabtiga ama xadda haddii aan la yidhaahdo suuragal tahay Maxamuud horta baryahan waxay nagala socon doontaan maalinta Khamiista ayaa nagala socon doontaan halkan laakiin se waxa laga yaabaa inaanu marka dambe isku dayno inaanu time-ka idinku bedelno weekendiga laakiin imika waxa nagala socon doontaa maalinta Khamiista
haye walaal ma santiin mashaakil male haye maxamed heesahaagii maxaad noo sidaa caawa caawa dee hees baan idinku dhufanaya anigu waa taqaana ani qac nooga sii soo dhawo hees waxaan idinku dhufanayaa waqaaya jir in la yidhaahdo cabdijabbaar alkhaliji maasha allah haye heesta marka waxaa la waranayaa adunu bana darada degelada habeenkii dugsi kama fadhiiste dibadaha wareegaye dan darararam adna aqal dugsoon bad dawaadii naftayday iga daawatahayo oo hadba doociga egtahay dan darararam ima dabeecadaba yadigu dayaysa ma jirkay damqanayaan ugu olindeeqay dan darararam anigu dayoobu dala laga hayaamiyo ee dhula laga daldoorsaday awadaadu joogaaye dan darararam adna dahab lamoodiyey doogo barwaaka dabeecahaad kumaashayod oo dareen lii u jiifta dan darararam maasha allah ma dabeecadaba yadigu dayaysa ma jirkay damqanayaan ugu lindeeqay waxbaa ka dhacay maxamud yaran u kaadi muusigaaga codkaaga waa sidataa kula jooga magaciisa ma garanaya ii sheeg bal isagana isbarade inanka ila wadaa inanka wariyaha inanka ila wada maxamed cabdiqaadir cilmi baa la yidhaahdaa halkanaa iska baran doontaan maxamuud dee waan baratid weeyaan maxamuud waxaad ka mid tahay saaxiibada barnaamijka ku xiran waxaana kaaga mahad celinaynaa codkaaga quruxda badan iyo weliba muusiga aad ku laratay adiguba oo aan filayo inaan aniguba la jadbooday heesta hore ugu luuqay jiray cabdijabbaar alkhaliji hore usoo gal adigana oo ku salaamaya kaltuuna waa isnaqaanaa iyada horta barasho wanaagsan marka barasho wanaagsan socon doonaa dee alyirahda aad baad umahadsan tahay maxamuud haye maxamuud aad iyo aad baan kuu salaamaya aadna waan kugu mahad celinayaa adiga iyo inta kula joogta ereyadaadaba Germany aad baan salaamaya Germany u saada kaltuun ka telefoonka isku qabo waxaan u maleynayaa maxamuud wuxuu ka mid yahay saaxiibada barnaamijka ha maxamuud saaxiib waad mahadsan tahay qofka kale qad ku jira haye kaltuun ma ka qabtaa saada ka qaban haye hallo assalaamu calaykum عليكم السلام قلتم وين السلام هذه ويلك برنامج كدابينا waxaa raba halkan inaan hambalyo aroos ka daayo wala macaani aad iyo aad baan ku salaamayna anaguna magacaaga wala ii sheeg magacayga waxaa daaqaado miro colaad waxaan joogaa London okay Faadmo walaal aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa walaal sida waxa doonaysan darsatadu ku banaantay walaal waxaan rabaa inaan halkan hambalyo aroos uga jeediyo Faadmo Cabdiraxmaan Sheekh Muuse iyo duqeeda Fikriye Maxamed oo isniintii dhaweed ku aqal galay magaalada Muqdisho waxaan leeyahay arooskiina Allah ka dhigay kii lagu waaro waxaan rabaa inay ii saartiin heeskii nimcayaasiin haddii ay awoodaan heeskii nimcayaasiin arooska lagu talagalay soo maaha aan kula jeebinaa adiga laftigaaga mad ku luqaysid ana aqaane أبو كله قيل هاي حتى أقاني وأنا أقاني حبيبتي أي حبيبتي أنت هذا وترتاح بليادة نوحنا ملانية إن أي توس كاجا قدومين أنا ونسلان هذا قروح بدن له وكا قدومنا بيلا تاي هذه أبد ما هتسن تاي أنا ونكوجم هالعلنا أنا ونحن لنا همبلي النقد كويس كوارا وبد خير قبيلة هيك لسيه دلك هذا يدين تودنا ها وأنفعه أو وبد خير حلاله إلهي سيه إن كنتم وحلا إلى فرتي فرانتيكا faraska iyo geeyada shaatiga iyo waliba waxba la sheegay waxaan malanayaa intii aroostay aqal gashay waxaan leenahay ilaahay gurigeena ha idin waasiyo waxaan anakana ilaahay kaga baryaynaa inaan noqotin kuwa isku war ubad qeyb kale hela markan waxa jira kaltoon muuqaal aan ugu talagalnay inaan saaxiibada barnaamijka nagala qayb qaadanaya na daawanaya inay nagula nastaan aaladaha social media ga waxyaabaha laga dhaxla ayaa jiro oo aad
bulshada qaarkoodna u wanaagsan yihiin waxa la dhaxlay qaarkoodna ay aad u xun yihiin toddobaadkan waxaa jira kaltuunay muuqaal aad u qabsaday aaladaha social media oo weliba aad looga hadalhayay waxaa ka hadlayay waalidiin fara badan oo ku dhaqan dunida caalamka waalidiintu waxay isugu jiraan madow iyo cadaan muslim iyo gaalaba dhammaan dadkii way wada saameysay dhacdadan waxay tahay in la arkay qof shil galay oo haddana sawir iska qaadaya si uu usoo muujiyo Instagram-ka ama Facebook uga soo muuqdo taasina waxay sababtay in qof dhibaataysan ama dhiban caawintiisa sawir la iskala qaado waxyaabaha ugu yaabka badan ee laga wada hadlay waxa kamid ah oo waalidka aad uga xumaadeen dadka waxgarka waliba arintan waxay u badan tahay dadka dhalinyarada ayaa inta badan sameeya kalsooni waxay tahay in la arkay wiil yar cunug yar oo bijri baabuurka carruurta lagu jiidayo bujir danna meel train ku sii dhacaya dan gabar baad wiil baa inta ortay ayuu sawir buu iska qaaday markaasuu cunugii ku sii dhacaya meeshii sawir iska qaadaya danna Instagram-ka ayuu soo muujiyay halkii xilligaas loo baahnaa qofkaas in la caawiyo inuu si fikireeyo ama badbaadiyo ilmaha yar shotcut film baa laga diyaariyay aan filayo markaan daawano kadib in asxaabtu ay nagala qayb qaadan doonaan balse waxaan ka hormarinaynaa qadka telefoonka qof ayaa ku jira assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaal waxaan kaa soo wacayaa London magaceygana waa Hana Xasan hana soo dhawaad barnaamijka kuna sakalsan waa maasan tahay abaay waxaan halkan waxaan rabaa inaad tala u gudbiyo asxaabteyda muddo badan iyo dambeysay waxaan salaamayaa asxaabteyda ku nool magaalada Dubai oo ugu horeysta hooyaday maama Caasho waxaan kala salaamayaa walaalkay Axmed Xasan Kamal Xasan dhamaan asxaabta Jamiilo kulli waa salaamayaa intii magacayga taqaano idinkan waa salaamayaa kalfiibi hanan xasan aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa dhammaan intaad hawada u marisay qaraabada asxaabta iyo familkuba inay ku daawanayaan oo ay haddaysan daawanna fariintaada la gaarsiin doono saaxiibadaada daawanaysa inay sii gaarsiin doonaan waa mahadsan tahay hees ma codsan karaa walaal waad codsan kartaa laakiin waxaad noogu soo tala gashay inaad barnaamijka nagala qayb qaadatid maya maanta waxaan ku soo talagelin barnaamijka ku isbahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan heesta hooyo nuuro ee farxiyo kaba yare ay soo deysaan hanan heesaha muusiga TV-ga kalsanka lagama sii daayo balse waxaan ku soo galinaynaa kartuun baan dhinaceega joogto oo noogu laqaa doonto heeskaasi aad iyo aad baad mahadsan tahay walaalo ana aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa intaad salaanteena salaantii dabcan way ka gudoomin doonaan bay ila tahay haye bal filinkan anaba xiiseynaya shorkilkan laga soo duubay bulshadayna daawanaysaana kulliba way xiiseynaya waxay doonayaan inay arkaan bal day noogu tuur axmed yare oo dhanka farsamada iyo weliba kaamirada stuudiyaha koowaad noo hagaajinaya haye axmed yare saaxiib waxa aad ugu yaabka badan waxay tahay markaad aragtid in ayadoo guri gubanaya ay inta istaag sawir iska qaadayso sheekadaas waxaan maraynayaa sheeko inta badan aad loo hadalhayo way ahayd maxaa kaaga baxay adigu maxaad is leedahay waxa xigi kara halkii ay kusoo dhici lahayd maskaxdaada qofkan badbaadi ama badbaadina ay kusoo dhici lahayd saa waxa kusoo dhacaysa horta marka ugu horeysa Facebook hala saaro iyo horta sawirkii meeshii dhigo horta kabacdi baad doontaa dadka badbaadin doontaa caawin doontaa sheekada sheeko qosol badan baan anigu ku arkay Facebook ku arkay basically shalay toole waa aaladahan Facebook waa kullayba laga soo duubay aad buu dhib badan yahay wanaagna wuu leeyahay xumaan badan wuu leeyahay waxa weeyaan Soomaalidii ayaa badanaaba markay meelahan la yiraahdo laga dalbanayo disability-ga ama ayda laga dalbanayo waxay sameeyaan waxay arti garan disability waa dadka curyaanka waxay qaataan lacag ka dheeri ah dadka kale ka dheereeyada iyada waxay helayaan taqaanaay care fara badan oo dadkii kale aanay haysanin marka ninba wuxuu sameeyay meesha wuxuu galay disability-ga laga dalbado ama sawirda Soomaalidu taqaanaba meelaha laga dalbado dacayda ayuu galay kabacdina wuxuu jiidanayay islaamaha gaboobay maartay halkan yar ay ka socdaan trooliga maartay ayuu jiidanayay curyaanka ninku markaa wuxuu sameeyay xitaa cagihiisa wuxuu sameeyay inuu qof yani xanuun aad iyo aad far badan u hayo uu gariirayay markaas ma taqaanay yani qof uu isir taaguna sanayay haddana in yar buu dhaqaaqay uu gariirayay basically marka aad xusuusan qofkaas inaba caadi ma wax xanuunsanaya ayuu saxaysaa adigu laakiin ninkaas waxay noqotay markuu meesha ka soo baxay oo bildhigi ka soo yara dheeraaday inuu inta hareeraha iska eegay fanaanadiisa xidhay fanaanadii buu xidhay fanaanadiisa markuu xidhay hareeraha iska eegay bahalkuu ku tukoy gabigiisa gacanta ku qaatay ayuu cararay kaltuun aan kugu daray muuqaalkaas waxaa duubay
dad deegaan ah ha waxay degan yihiin wadada uu maro oo traffic lightka ama lightka dad gaadiidka kala haga marka way arkeen bay ila tahay mar dhowr walba jeer bay asagoo arkeen asagoo maraya sida lagu ogaado way adag tahay danna mobile bay qaateen daaqad baa laga dhex duubaya muuqaalkaasi ha aad buu u yaab badan yahay waan jeclaysanay inaan soo baahino laakiin waxaan jeclaysanay inaan kolleyba wiigaga dambe ayaynu tusi doonaa aad u weyn wiigaga dambe ayaynu tusi doonaa halkan bulshada ku arki doontaa laakiin bal ka waran heerka laga gaadhay aad bay u yaab badan tahay weliba markuu soconayo lugihiisa waxaad moodaa in qofkan curyaan uu yahay u baahan yahay caadi caadi curyaan markuu caadi luuq soo galana shaatiguutu iska bedelaya bahashii uu ku socdo curyaanka ayuu garabka saaranaya waaba kaa xoog badan yahay waaba kaa xoog badan yahay waxyaabaha waxaa waa inta badan lagu yimaada qurbaha qurbaha ilaahay naguma qasbo qof lixaadkiisa qaba inuu saas u ahaada waa sheeko aad u adag kaltuun waxaa jirto sidoo kale fariimaha saaxiibada ay noo soo diraan barnaamijka kuna sakalsan sheeko kaloo aad u xiiso badan ayaa jirta waxaa inoo soo diray magaciisa kumausa soo qoran qofkaani hadduusan gadaal dambe warqadda uusan kaga soo xardhin yaxye guray ayuu yidhi waxaan ku dhaqanahay magaalada muqdisho sheekadani waa sheeko aniga laftirkaygu baan kaltuunay aad uga helay wax badan baa laga fahmayaa wax badan bay waxay leedahay dhaxal qofka markuu akhristo ama markii uu dhegeysto wax badan buu ka faa'iidayaa waana wacyigelin hordhaca sheekada wuxuu kusoo qoray sheekadan waxaa ugu talagalay inay wax ku fahmaan dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan siba inta afka soomaaliga ku hadasha marka hore waan islaamay ayuu yidhi daadiyaasha barnaamijka magacyadana soomuusa soo qorin dabcan waxaa daadihinaya barnaamijka kaltuun iyo weliba anigoo ah maxamed cabdiqaadir sheekadani wuxuu ku bilaabay sida tan wiil ayaa ku yidhi aabihiis aabe waxaan rabaa gabar in la ii doono gabadha la ii doonayo waa gabar aad u qurux badan marka waxaan rabaa aabe reerkeeda inaad iiga doontid oo aad ii weydiisid sida dhaqanka soomaalidu iyo caadadu inta badan ay tahay wiilkii iyo aabihiis dhalay ayaa issoo raacay danna waxay yimaadeen gabadhii reerka gurigeeda aabihii gabadhii markuu arkay maxaa dhacay kaltuun waxaa dhacay in aabihii uu yidhi waxaan u baahanahay gabadha adiga aabba aad gursanaysid aniga ayay ugu habboon tahay oo qof mas-uuliyad qaadi kara ayay gabadhan ku habboon tahay adigu wiil yar baa tahay welina maada gaarin xilli aad guur iyo mas-uuliyad aad qaatid gabadhaanina kuma qalanto ee aniga ayay ii qalanta aabihii baa damcay oo wiilkii sidaa ku yidhi sheekadu way xumaatay intaa kuma sii ekaanin waxaa dhacday in odaygii iyo wiilkii ama aabihii iyo wiilkiiba ay sheekadu noqotay inay gar dhigtaan waxay u gar dhigteen aabbaha nin la dhashay oo wiilka adeera u yihiin waxaa dhacda marka in wiilkii iyo aabbihii iyo qofkii saddexaad soo dhex gala oo wiilka adeer u ahaa aabbahana la dhashay in uu dhahay aniga ayaa idin gar qaadaya oo aan garta goonaya idin dhex galaya waxaa dhacday in adeerkii markuu arkay gabadhii asna uu yidhaahday labadiinaba uma qalantiin gabadhaani anaa u qalma oo hanti leh oo dhaqaalay kara oo xanaanay kara أنا قاعد كراهن أنا جاي جورسانية شكلي ما هن أنت كو إكاد كرتوني واحد عادي إن أي أتجن دقي مجال ده هيست دقي مجال ده مركي الله تجي وحول هاي جبر هرت على يتصو جبر مركي لكاني وحويره من مغلس سينمائي هو جبر أنا واحد ربته جورو وين ويكون نولاته إنه لطفي أنا يكون نولاته يباور يكون سعته يأدوني هنتي بدن مركز ده حدينا بجبر أنا مقلنتيني نيجي جبر أنا أقلمه هم مسؤولية ده قاعد كره هو أنا جا جبر أنا لسه كويس محي كرة تسلا ده gabadha la isku haysta kulli bada waa gabadh inaba aan caadi hayno inaba aan la deekrin walaa ka dhacday haye sheekadu inta kuma ekaan kaltuunay saddex qof bay maraysaa waxa dhacday in loo tagay gobol batoorihii waxay maraysay sheekada duqi magaalada ay maraysay waxa loo tagay hogaamiyihii wadankaasi haystay markii loo tagay gabadhii wuxuu dhahay horta gabadhan la isku haysto saddexda nin ay isku eersanayso afartan nin ay isku eersanayso hal ii keen haye oo anigu gabadhu hal i tuso markaas ayaan garta googaraay waxa dhacday in gabadhii markii la keenay ninkii wadanka haystay ama wadanka dhan taliyaha uga ah madaxweynuhu kala ahaa xilligaasi sida sheekada ku soo qoray in uu yiri nimayo mi maqlaysin gabadhaani idinka mas'uuliyaddeeda ma qaadi kartiinba ma geey kartiinba qofka lagu tala gabar inuu guursado waa aniga iyo dad iga sareeya sheekadii afar bay noqotay waa isku haystaa boqorkii ugu sareeyay xilliyadaas waxa jiro markii qarniyo hore dib loogu laabto darajooyin baa la kala sareeyay ugu sareeyay boqorkii ugu sareeyay meesha ayaa tagay markaasuu gabadhii wuxuu dhahay la keen asagina gabadhii markii loo keenay ugu dambeeyna wuxuu yiri sidii oo kale gabadhan boqortooyada ayaaba loogu talagalay inay ku noolaato shan qof ayaa meesha isugu timid haddii la sii wadi lahaa malaha 20 ka badan way gaari lahayd
waxa dhacday in gabadhii markii dambe meesha timid ay dhahday waxaan rabaa in aniga in kala bixiyo oo idinkuba aan ka hadlo anigu waxa i guursanaya ninkii soo qabtaa ninkaasi ayaa i guursanaya ayay ku dhahday gabadhii ugu dambeyn waxay dhahday waan ordaya cidda iga daba orata ayaa guurkayga aqbalaya markii ay dhacday gabadhii in ay oroday waxa dhacday inay godweyn ku dhaceen 5 nin godweyn markii ku dhaceenna ay soo dul istaagtay markaas waxay ku tiri aniga ciddaan ahay ma i garanaysin markaas waxay ku dhaheen maya anigu waxaan ahay adduunyana inaad qabatid haba sheegin adiga un baa ku daalaya sheekadu waxaan u malaynayaa waa soo gabagabay laakiin macna badan inay sameynayso si fiican bay iga dhaadhacday atam daawadayaashuna inay si fiican u fahmeen marka gabadhu waxay ahayd waxay gabadhu mataraysa gabadh ma ahayn dunyada say dadku daba cararayaan waa dadka adduunka ku nool oo dhan kalsoonay sida ay u raadiyaan maal dunyada si loo buriyo soo marka lama gaaray adduunyada aakhirada waa in loo shaqeystaa xigmadda sheekada ku jirtana waa inta waqtigu aad noogu xigmada fiican qadadka telefoonada qadka telefoonka aynu qabana hallo assalaamu calaykum halo calaykum assalaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لا أدبن كوسو دوين لا أدبن كوسو لامينا مقعاقي مش نقل سؤال لسيد وأحمد هذا نولو دنجوغا أحمد وآدي أدبن كوسو دوين إنا هاي محل عاود دون سنقل غيب قادتي سلام بدي غيب قادنا يا هاي والله السوداء سلام ميهاني هاسي قبل يحكى لنا مسدد مياه ما هاسي بي هاسي أدان هاسو ماشو كده غيقسي هاي وحوم ولا مش ولا اسكت هالقراياي هاي والله السوداء codkii laga soo xayay soo dawalay hay'ad salaamsa marka hore salabadiina salaamay walaal anana aad baan ku salaamayna walaal marka labaadna waxaan salaamay walaaladay oo Zahra Aadan Saadiya Aadan Idil Aadan Abdu Aadan Maxamed soo koobi maayo gabigooda aabo heer Aadan waan salaamaya markasta adduunka ka joogaan haye ya asxaabteeda qaaliga ah ya dhammaan ummadda muslimka Soomaaliyeed Allah ya salim iyaguna waxay la tahay inay ka gudoobeen taateediina ay hawada ku soo marin doonaan anaguna aan aad iyo aad ku salaamayna aadna ku mahad celinayna Ahmed thank you very much waan ku leenahay gunaanadkii barnaamijka ayaan soo gaarnay dadka nasiib ku yeeshay barnaamijka waqtiyada ugu dambeeyay inay salaantooda hawada u mariyaan qofka ku jira qadka telefoonka salaamu calaykum مستري محمد تلم وقتي وبعد رأينا حاول مش من نشوفين قف waxaan umaleynaya saaxiibada barnaamijkana u saaf gareyno dad badan baa isku dayayna caawa dhan barnaamijka soo teleefanada soo garaacay laakiin u soo geli waay assalaamu calaykum saaxiib ku soo dhawaad barnaamijka halo waa barnaamijka halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay codkaaguna yaro u hooseeya kor inoogu qaad si aan ku maqalno weli codkaagu u hooseeya maqalkiisa si anagana aan ku maqalno saaxiibada ku daawadanaya barnaamijkan ay ku maqlaan sare codkaagu u qaad turkiga ayaad ku sugan tahay magacaaga yasmin kusoo dhawo barnaamijka codkaaga weli uu gaaban yahay meel dheerna aad nagala soo xiriiraysid waxaan ku leenahay yaad salaamaysaa hal iyo labo أطلع حنا سفع المقلة ياسمين هذه عاد بنقحهم هي ولا المعن مقعد كاغ سفع المقلين كلا لو معها عدة سلام يسيدنا طبعا كما مقليس هذانا نجي كما مقلينين مركا عاد بنقحهم هي ولا المقعد كسو هاجسي اي نو سocon doonta khad kala ku jira beela tamiya telefoonka halo assalaamu calaykum halo walaal magacaaga magacayga waxaa la dhahay Ikraan Axmed Ikraan halkee ku sugan tahay Ikraan Axmed walaal Ikraan Axmed haye Ikraan halkee joogtaa UK Ikraan ku soo dhawo barnaamijka kuna sakalsan salaamaha hal labo waqtigu aad inoo kulaalaya yaad salaamaysaa maxaad inoogu soo tala gashay maya heesaan qaadi walaal haye soo dhawow wadadkan soo dhawayntanay haye walaal soo dhawow kalgacaylka geeskaaga awoowe admayuu ku gaaswarinaya awoowe maradaynu kalabtaba goobaynu sheekadiyey cawaanka waayayey
gobonimadu waa sharaf gobonimadu waa sharaf adna geeri iyo nolol guulehey ha guulaa jiro guulaa jiro alale waxbaa ka dhacay maasha allah maasha allah maasha aad allah baan kaga mahad celinaynaa maasha allah aad iyo aad baad ikraan u mahadsan tahay iyo codkaaga macaana dabcan noogu deeqday badan hablaha iyo nabad malo kala dhiirayn baan isiri aad u weyn ya dee habluhu marka hoos bay hees hore kasoo tuuraya laakiin nimadu kaltuun guniga wanaadkii barnaamijkeennii waxyaaba waxaa jiraan ballan qaadnay oo aan rajaynayo inaan baahin waqtigu aad inoogu yaraa barnaamijku waxaan u malaynaya waqtiga loogu talagalay iyo weliba xilligii gabagabada barnaamijkan soo gaarnahaya صح aad iyo aad baan uga xunnahay waqtigoo aad iyo aad inoo celiyay oo aad iyo aad inoo soo eriyey bulshada adduunyada dacaladeeda ama daafaheeda naga daawanaysa la socotaa ku naso Kalson TV ama ku xidhan barnaamijkan ku naso Kalson TV aniga iyo Maxamedba waxaanu idin leenahay halkiina kaga xidhnaada halkiina ka sii wada habeen walba oo khamiis iyo 7 fiidnimo ayaan halkan isku arki doonaa inkastoo aanu saacadaha badbedelnay aad iyo aad baan uga xunnahay saacadaha aan badbedelnay laakiin see kulliba satal bay noo noqon doontaa adinkuna waa nala socon doontaa bay tahay bal Maxamed adiguna maxaad doonaysaa inaad halkan dadka uga sii sheegtid toddobaadka xiga intaan ku wada kulmi doono barnaamijkii ku naso Kalson oo ay si wada jira caawa halkaan idinkugu daadihinayeen anigoo Maxamed Cabduqaadir Cilmi iyo waliba أنا أكلتون موسى عبد الله dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى nabadiina باي